السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسر دوادا مقال عصوب iyo sheeko cusub. noloshu waxay bilaabantaa adigoon waxba haynin, wax kastaana ay maqan yihiin, lacag la'aan, xiriir la'aan, iyo weliba aqoon la'aan. Abdi waxa uu ahaa wiil qurbaha tegay isagoo maray nolosha tahriibka iyo balanbalka Liibiya. Rajadu waxay ahayd mid wacan oo in badan ku taamayay. Waxa uu tegay mid ka mida wadamada Yurub ee qurbaha. Caqabadaha ugu waaweyn ee marka dal cusub tegtid waxaa ka mid ah luuqadda dalkaas ee cusub iyo weliba bulshadii oo aydan isfahmaynin. Waxa uu tegay dal aanu cid ka garanaynin, luuqad ka garanaynin. Shaqadiisii u horreysay waxa uu ka bilaabay caseeye ama baalashle. Dad badani way la yaabi jireen, waanay ku qosli jireen, iyaga oo la yaaban wiilkan ka shaqaynaya caseeyaha ama baalashlaha. Waxa uu shaqayn jiray 12 saacadood maalinkii si uu u dabaro nolol maalmeedkiisa. Dadku noocyo badane, waxaad arkaysaa mid caayaya, mid ku dhiirigelinaya shaqadiisa, iyo weliba mid dhibaataynaya oo laga yaabee lacagtii uu shaqaystay u diidaya, isaga oo yasaya, cunsuriyeynaya, amaba se dhibaato kale u geysanaya. Abdi isma uusan dhiibin, noloshana kama uusan quusan, waxa uu hoosta ka watay waxbarashadiisii isagiyo shaqaysanaya. Habeenkii markuu soo rawaxo ayuu baran jiray luuqadda dalkaasi oo Ingiriisi ahayd. Sidoo kale waxa uu badanaa baadhi jiray YouTube-ka iyo meelaha kale social media ee xogta iyo aqoontu ku kaydsan tahay, aqoon uu wax ka kororsan karayo. Waxa uu baadhi jiray ayaa waxay tahay aqoomaha ku saabsan businesska iyo ganacsiga, maadaama uu Cabdi aad u jeclaa aqoonta businesska ama ganacsiga. Sidoo kale Cabdi waxa uu samayn jiray wax badanaa inaga maqan oo ah kaydsiga, inaad lacagta mushaahar ahaan u shaqayso maalinkii amaba bishii aad wax kaydsato. Waxa uu kala badhigi jiray lacagta uu shaqeeyo maalinkii, isaga oo kala badh meel dhigan jiray. Marka ay lacagtii u gaadhay heer uu meel furan karayo, waxa uu furtay meheradiisii u horreysay oo ahayd carwo kabaha lagu qurxiyo laguna nadiifiyo. Si dhiiran oo dhalinyaraysan ayuu uga shaqayn jiray. Muddo 3 sano ah kadib, Cabdi waxa ay shirkadiisii noqotay shirkad aad u ballaadhan, caan ah, heer ay shaqaale ay qaadato, ay dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo dalkaasi jooga ay shaqaalaysiiso. Shirkadiisii waxa ay gaadhay baaxad ay aqbali karayso, qaadan karayso shaqaalo kor u dhaafaya ilaa iyo 12 qof. Waxa ay yeelatay shirkadii shaqaale kor u dhaafaya 14 qof. Isagiina waxa uu noqday managerka shirkadii. Haddeer carwo waa laga soo gudbay, waxay maraysaa shirkad. Waxa uu halhays ka dhigtay ereyada ah kabahaaga iyo kalsoonidaada, oo macnaheedu yahay kabahaagu markastay sii qurux bataan waa markastoo kalsoonidaadu badan tahay, waa markastood si fiican u soconayso. xaragaduna waxay ka bilaabantaa waa kabaha. Cabdi hadda wuxuu ka tirsan yahay ganacsatada waaweyn ee dalkaasi. Maar waxaa jirtay uu waraysi ka qaaday TV-ga qaranka dalkaasi oo Cabdi lagaga waraysanayay siduu ku keenay shaqadan iyo kambanigan uu ku aasaasay, dulqaadka inta leeg. Waraysi mar TV-gaasi uu ka qaadayay ayaa waxaa ku jirtay in la weydiiyo su'aal ahayd, fariin noocee ah ayaad u diraysaa dhalinyarta Soomaaliyeed ama dhalinyarta dalkaasi si ay iyagana ugu dhiiradaan, kalsooni uga qaadaan dhiiranaanta iyo firfircoonaanta Cabdi oo kale. Cabdi waxa uu ku jawaabay in uu ganacsigan ku bilaabay daacadnimo, dadaal, iyo in aanay jirin
shaqo la yasayaa. Haddaba waxaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalkan ereyo ka mida ereyadii Cabdi uu ku dhiirigelinayo dhalinyarada. Ha yasina shaqada. Shaqo yasani ma jirto. Qof walba waa qof shaqaysanaya. Qof walba waa qof doonaya in uu dawarsiga ka maarmo. Taas in aynu fahanno ayaa muhiima. Shaqo waa shaqo. Markasta waxaad shaqaysanaysaa waa lacag. Lacagtaada ayaad shaqaysanaysaa. Waxaa muhiim ah in aad xoogsato. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalkeennii iyo sheekadeennii. Waxaan kaa codsanayaa inaad noo subscribe garayso, noo share garayso muuqaalkana like noo saarto. Aad iyo aad baad mahadsan tahay.